anigu fanka gelin waxaan ahaa ardayad baan ahaa waxaan ciyaari jiray basketka orodada gobolada ayaan u ordi jirtay gobolka waqooyi galbeed baan u ordi jiray dhowr jeer baan xamar nala geeyay anagoo isboortigaas marka iskuulka iyo isboortigaas ayuun ka shaqayn jiray markii hore markii dambena anigoo ardayada baan fankana ku soo biiray barigaasi ma islahayd fanka ayaad ku biiraysaa oo waxaad noqonaysaa fanaanad caan ah oo weliba idaacada waaweyn iyo dadkoo dhan ay wada garanayaan maayo wallaahi ismaan lahayn waayo dee horta idaacadahan waaweyn iyo waxaa BBC-na waan dhegeysan jirnay radio Hargeysana waan dhegeysan jirnay laakiin adduunkan kale iyo dadka populationkan iyo waxaas baaga waa la iska yaryaray waxa maan islahayn sida halkan imika heerka u gaadhay baad u gaadhay waa tahay ma xasuusta markaas aad fanka ku soo gashay waxaan ku soo galay iskuulkaygan ka bilaabay fanka heestii u horeysay macallinkayga carabiga ii dhigi jiray baa ii dhiibay hees wadani ahayd waan xasuustaa hawiye dadweynuhu baa la oran jiray markii ku xigayna sidii iskuullada riwaayadahoodii wixii baan dhigdhigi jirnay markaas saasumaan ku bilaabay waa tahay si gaara maxaad ka xasuusataa maalmihii fanka aad gashay dariiqadii aad u martay iskuulka ma waxaa lagu dhigi jiray qayb ka mida fanka macallinka waxaa loo dhigi jiray carabida ilaahay ha u naxariistay wuu dhintay marka waad iska garanaysaa iskuullada xiisad waxaa jiri jirtay muusikada iyo la oran jiray muusikada abaa jirtay iskuullada marka taas unbaa ardaydu heesaysaa marka heestaasaas ayaa qofka codkiisa iyo waxaa lagu kala garan jiray annaguna arday iska heesaysun baan ahayn saas awgeed unbuu macalinkaasina iigu dhiibay heesta dabeedna radio Hargeysaaba laga duubo waxay noqotay heeste caanoo soo baxday markaa waa tahay intaasi kadib horta hees inaad soo saarto oo shaqo intee leeg ayaa kaa geli jirtay wallaahi anigu markaas heesaha shaqo gooniya umaan qaban jirin anigoo iskuulka dhigtaa shaqadana lay qoray markaa fanaaniin waaweyn baa joogtay Hargeysa oo waa beri ahaa fanaaniintaas ayuun baan u iman jiray markaasaa heesahana halkaa qaar laygu xafidsiin jiray marka anigu iyo dadkaa waaweyn baan la bilaabay oo dee gacan qaban jiro gartayna mala yidhi gabadhan way heesi kartaa gaar ahaan macallinkayga Saalax Qaasim ee u horeeyay iyo tuma iyo fanaaniintii kale dee markaa joogtay oo dhiirin gelin jirtay marka sidaasunbay siyarunbay saa u bilaabatay riwaayadii baabay igu xigay ilaa habaka qabanay waa tahay hal hees baan rabaa inaan ku yarnasono intaanan qaybaha kale u gelin heeskii mahiigaan jacayl khadradda hircigaay sanad cusub ayaa la galay bal imise sanadood ayaad horta fanka ku soo jirtay horta sanadka cusub ilaahay ha nooga dhigo mid bashbash iyo barwaaqo lagala kulmo ilaahay ummadda Soomaaliyeed nasri khayr qaba siiyo ilaahay awlaadeena inoo barakeeyo ilaahay dalkeena ina aaminsiiyo ilaahay ha nooga dhigo anigu waxaan soo bilaabay fanka 74 baan bilaabay ilaa dee iyo imaka 2002 baa iigu dambeysay waan ku soo jiray marka khadray maadaama 2002 ay fanka kuugu dambeysay ma waxaad leedahay fankii waa ka baxay oo waa iska dhaafay maama anigu fankii waan ka hadhay sababtoo ah anigu horta qof weyn baan noqday midda kale caruurtaydii baa caruur sii dhashay awlaadii baa maaragtay imika iska weynaatay aniguna qof weyn baa noqday ta kale waxba markii hore diinta maanaan ka garanayna diintiina waanu la qabsanay marka wallaahi waxaan go-aan ku gaadhay inaan faraha ka qaado intii horena ilaahay iga cafiyo saasaan markaa fanka kaga hadhay
taasi waxay ahayd Khadra Daahir dhegeysanaya marka laga yimaado fankii maanta maxaa dadweynaheena sheekooyinkii caadiga ahaa ee aad xasuusatid oo waliba adigu markaad soo xasuustay aad ku qososhid aad nala wadaagaysaa kolle Khadra sheeka kaama madhin sheekooyinkii igu qosolka badnaa waxay ahayd beri ilaahay ha u naxariistay Cumar Duule Cali aan wada soconay oo cumarna nin aad iyo aad qaali u ahaa buu ahaa ilaahay naxariista jannaha ka waraabiye ayaa anigoo baabuur wata oon isagana isla soconaa waxaanu tagnay shabeelle halkii la oran jiray baanu tagnay dabadeedna marshabiyeediga ayaan ku dhoweeyey gaadhiga nin xoog weyn baa taagnaa ninkaa xoogga weyn markuu arkeen marshabiyeedigii ninkii ku dhow ayuu ninkii igu qeybiyey sulinaan nagadu gaadhiga intuusa bakooradu haystay kor ugu qaado markaasaan ku yidhi cumarna waxaan ku ogaa dadka iska gaabsada ee dee nabadda jecel markaasaan ku yidhi maxaad noogu qaylinaysaa miyaad ogeyn rag nala socdo caynkaa baaba intaa markuu maqlay ilaahay u naxariista daaqadii faka siiyey xagganuu ka soo wareegay ninkuna wuxuu ahaa nin aad iyo aad u dheer cumar baa halkaa xuduntiisa ugu dhacay ninkina madaxu saa gacanta kaga qabtay marka waxaan islahaa dagaal buu samayn doonaa waxaan maqlay isagoo leh arinaad xishoodo dawaabliyeeni maartay oo arrintii maslaxa ka dhigay wuu cabsaday waa Cumar Duule Allah u naxariiste Cumar Duule ilaahay u naxariiste waata sheeko xasuus ku guleedahay oo qosol badan aad iyo aad waan xasuustaa mar walba wallahi ninkii markaa uu iska tagay soo kan maslaxay odaygu wuuna gartay dawanuna gartay oo dabadna harba raaliska ahaada buu nagu yidhi I think ninku reer waqooyi buu haban malanaya maradiisa markaasaan ku roogay Cumar maxaad ninka maxaad u baryaysaa caynkaa buu yidhi intuu leegyahay miyaad arkayn wallaahi aniga adiga buyna mar lahaadee markaasaan ninkana raali ahaaduu ku yidhi annaguna qosolkii baanu halkii kaga soo dhaqaaqnay qurbahaad muddo ku noolayd Khadray bal ka waran qurbihii iyo noloshoodii sidee isku fahanteen maadaamaad Soomaaliya ka tagtay wallaahi way adkayd nolol xun oo adag bay ahayd maxba kamaanaan aqoon qurbaha dee dadka qurbay tagaan baan maqli jirnay laakiin nolol xun oo aan habeen u dhigmin wadankaaga ama aad ku gaajootid ama aad ku dheregtid ayaan ka soo marnay muddo 25 sano baan joogay caruur baan ku haystay caruur baan ku dhalay xataa wallaahi nolol aad u adag bay ahayd oo aan kulliba inaga xaggeena maaragtay aan ciyaar ku ahayn laakiin dantaa dadka baday keliya laga faa'iiday dee ilmihii ilaahay hagaajinaya ee waxbarasho sameeya mooyaane anigu shaqana kama gelin in marmar xafladaha iyo aroosyada iyo riwaayadaha aan taga mooyaane laakiin shaqada caadiga dadku qabanayaan maan qaban jirin ee ta gurigaan qaban jiray hooyaan guriga ka noqday anaa wax guriga u hagaajin jiray cuntada u karin jiray halkii la iga shaqayn jiray anaa u shaqayn jiray marka nolol iska rafaad ayay ahayd markaad halkaas tagtid waxaa lagaaga baahanyay inaad luqadii ku hadashid bal ka waran luqadii adiga sidee maxaad isla marteen wallaahi luqadda iyo anigu waxaan isla marnay weliba waxaan ahaa anigu dadkii iskuullada ingiriisda loogu dhigay hase ahaatee dee markaad halkaasoo kala tagto af ingiriisdaydi wax agaalo waxay anfacaysaa ma jirto maalin baa nin dukaan haysto oo hindiya iyo bakistaani maqaa wuxuu haaya ayaanu wax ka qaadan jirnay marka sonkorta iyo burka iyo waxaasu iibin jiray dabeedna ninkii baan u tegay maalintii dambe awal inta badan odaygayga la socon jiray laakiin maalintaa keligii baa u tegay marka waxaan raadinayaa xooxda bahalkii lagu dari jiray bikibowdher baan raadinayaa marka ninkiiba waxaan ku yidhi wuxuu igu yidhi maxaad eegeegaysaa masaan ku yidhi I'm looking in Beckenbauer soo nin ciyaartooya jarmar waaba nin ciyaartooya nimankiiba adna dukaankaa ka dhex raadinaysa ana dukaankaaba ka dhex raadinaya nimankiiba isku sheegtay Beckenbauer he's a player baan maqlayaa markaa dabeedna anigoo isnabayaan ka soo baxay dukaanka waan fahmay inaan khaldanahay dee waxayba leeyihin waa nin ciyaartooya Beckenbauer ana Beckenbauer baan raadinayay dabadeedna xaafadii baan ku soo noqday waxaan ku yidhi inaan joogay baan ku yidhi warheedhe wixii alxooxda lagu dari jiray muxuu ahaa markaasuu yidhi Beckenbauer dee waan ku yidhi markaasuu i raacay markaasaan dukaankii tagnay markaasuu ninkii yidhi miyaad haynin Beckenbauer markaasuu yidhi namay weydiin Beckenbauer waxayna weydiisay Beckenbauer dee qosol macaa nimankii macaa annagii dib dambese ma keligii baan dukaan u tegay markii dambe carruurtaa waad ku baranaysaa af ingiriiska oo waad baranaysaayo waad la qabsanaysaa moogta
waata waxba la yaab leh waan ka soo arkay. hadda qurbihii waa ka soo guurtay muddooyinkan hargeysaad ku nooled. iminka hargeysaan ku noolahay waan tagaa sanadkiiba hal mar baan carruurta soo eegaa laakiin inta badan hargeysaan deganaha. waa tahay shiil aad baa u qoslaysa sheeka aad u qosol badanayd waxay doonatay khadro waad maqlaysay bikin boorday doonatay cajiinka faxisada magac nin ciyaartooy bikin baawar soo qaadatay bikin baawar oo nin la yaqaano ciyaartooy Jarmalka u ciyaar jiro Jarmalka waaw aad iyo aad